xildhibaan Siciid Cartan Cismaan oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo telefishinka Star kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay si adag uga hadlay socdaal magaalada Badhan ee gobolkaasi sanagu ku yimid madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas iyadoo maalintii shalay tan ay ku qabsadeen shirkoodii golaha wasiirada waxaan u tilmaamay xildhibaanku arintaasi in looga fadhiyo talaabadii laga qaadi lahaa xukuumadda Soomaaliland arrinkaas waa arrin aad iyo aad u foolxun dalkeenu shaqada taga sameeyo oo xornimada haystay xuduud buu leeyahay dalkeenu xuduudana waxa weeye ilaalinteeda waxaan mas'uuliyadeeda koowaad waxa iskale waa xukuumadda dalkiina waxaad moodaa ayadoo imika baryahan dambe jabhado iyo waxyaalo badan oo nabadgelyada amniga khalkhal gelinaya ay ka unkameen oo aan weli xal laga gaarin ayaa waxa suuro gashay maanta in Cabdiweli Cali Gaas markii ugu horeysay taariikhda oo soo gaaro nin madaxweyne Puntland ka socda oo soo gaaro Soomaaliland xuduudda soo galo si nabadgelyo ugu qabso shir ugu qabto golaha wasiirada ugu qabto Badhan waxa weeye runtii waa dhabar jabay qarankan ku tahay waa kuuladeedii gobolka Sanaag oo dhan taasina wax la aqbali karo ama la qaadan karo maaha waxaan qabaa in dhaliisha cidda leh dusha laga saaro oo aan wax la eegan karo aanay ahayn waxa weeye waxyaalahan aad ugu qosday waxa kamid ah Cabdiweli Gaas shalay iyo daraad buu joogay Badhan xalay reedio Hargeysa wuxuu sheegay oo wax aad loogu qosla ahayd bara saabkii xukuumadeena u fadhiyay iyo dhiijigii kalluumaysigu waxay qaboojiyay ku qaybinayaan laas qoray gobolkiina waxa shir ku hayay waxa weeye waa Cabdiweli Gaas baa ayaa wasiiradiisa ku shirinayay xildhibaanku hadalkiisa uu sii watay waxaan u tilmaamay in qaar kamid ah xuduudihii dalku ay fureen sida darteedna ay fududeyn karto in gobollo kale oo kamid ah Soomaaliland ay soo galaan dad kale isagoo arrimahan ka hadlayna wuxuu yiri waxay ahayd arrinkaas waxa weeye waxaad arkaysaa markaa inay debarito Cabdiweli Gaas laascaanad inuu ku qabtana inaan wax weyn ka macniyaya ama ka maanacaya aanay jirin waxaan leenahay war arrinkaasi arrin la qaadan karo ummaddiina waxa weeye imika dhowrka cisho ugu dambeeyay ayay xuduudaheennii iyo gobolkii gobollada ugu mudnaa ka mid ah Badhan oo Cabdiweli Gaas ku shirinayo wasiiradiisii ayaa ummaddii waxa lagu mashquulinayaa xeer ka kufsiga ayaa indhahoodii lagu jeedinayo haday tahay xukuumad oo ugu horeeyay wasiirka asagu soo ansixiyay qof ansixiyay ka dooda golaha wasiirada ugu horeeyay marka xeerarka la soo gudbinayo asagana awqaafta ka wakiilaha hadduu xeerku wax dhaliil leeyahay asaga la rabay inuu ka doodo intaan golaha wakiilada u soo gudbin tilmaamo ay ahayd xisbiyada mucaaradka waxaan ka hadli lahaa dadweynaha ayaa xeerka kufsiga lagu mashquulinaya gobolladan oo ka tirsanna gobolladan oo ka tirsan Soomaaliland waxaad arkaysaa in la soo galo ilaa madaxweynayaal ay shirar ku hayaan ayaad arkaysaa waxaan arkaa runtii uu dhibaato weyn oo soo food saartay qarankan ficil baa loo baahnaa imikana xukuumaddu waxay ballan qaaday inay jawaab ka celinayso shalay go'aan bay soo saartay bal waxaynu sugaynaa go'aanka ay kaga fal celiso tan imika way dhacday wax loo dul qaadan karana maaha xukuumaddu waxay tiri fal celin baanu ka sameeynaa muuqata bal waxaynu sugaynaa wiiga soo socda waxay kaga fal celisaa ayaa ugu dambeyntii fariintan u diray madaxweynaha Soomaaliland waxaanu tilmaamay fariinta madaxweynaha u diray waxa weeye madaxweyne waxaan leenahay madaxweyne qaranka tahay waanu ku taagan haday golayaal tahay iyo haday shicib tahay saatu karraqba ugu dhiiratay ileen waxa ugu horeeya waxa weeye Soomaaliland ku tahay waa sugitaanka xuduudaha qaranka waxa weeye tan waxaanu kaaga fadhan in jawaab cad oo muuqato ummadda qancisa talaabo cad inaad ka qaado ayaanu kaaga fadhinaa shir jaraayada meel lagu qabtaa ummadan kuma filaayaan leena
ismaan axmed ismaan star TV hargeysa.